Robin Hodgson ninka labaad ee ugu saameynta badan ganacsiga hoteelada dalka Ingiriiska waa damiin 3 jeer oo isxigta ku dhacay imtixaanka dugsiga sare wuxuu ka baxay guuldarrooyin badan kadib isagoo oo jira 14 sano sheekada ninkan ayaa waxa aynu ka baran karnaa qofku mar haddii uu nool yahay inuu gaari karo gool waad ka nasiib iyo xirfad badan tahay haddii aad dhigatay dugsiga sare oo aad waliba ku baastay sababtoo ah isagu wuu ku dhacay sidoo kale waad ka sarreysaa oo aad ka xariifsan tahay oo anaa ku xaqiijinaya haddii aad horey ugu baastay hal xiiso oo aad gashay imtixaankeeda ujeedka ugu weyn ee aan u soo qaadanayno sheekada Robin ayaa ah in aad ila dareento aadna ka xorowdo xayndaabka kugu xiran waa haddii uu jiro kaas oo kule ma ka gaari kartid shaqada aad hayso guul waan hubaa inaad ka noqonayso guulaystaha booskaaga waan hubaa oo waxa xaqiiqo ah inaad ka noqon karto halka aad joogto ninka ugu horeeya si dhow ila fahan muhiimadu waa inaad ugu horeysid waxa aad qabanaysid oo aad tahay kaalinta koowaad shaqadaadu ha ahaato xitaa mid ay dadka kale ka faanaan inaad joogto halka aad kooda u tahay ayaa kaaga fiican 1000 jeer inaad fadhidid meel aan laga tabin maqnaanshahaaga joogistaadana aan laga dareemin Robin Hodgson waxa uu ku dhashay 1957 dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxa laga yaabaa in nolosha Robin Hodgson ay ka hooseyn lahayd heerka uu maanta joogo haddii aanu ku dhici lahayn imtixaanaadka iskuulkiisa Robin Hodgson oo la hadlaya BBC-da ayaa yiri waxaan ku dhacay dhammaan maadooyinkii dugsiga sare mana ii suurtagelin inaan jaamacadda ku biiro sidaas darteed waxaan isku dayay inaan raadiyo wax kale oo aan ka shaqeeyo berigii aan 16 jirka ahaa ma aanan xiisayn jirin haasaawaha hablaha hooyadayna waxay oran jirtay waligaa waxaad jeclayd inaad madbaqa dhex meeraysato hooyada dhashay Robin waxa ay wiilkeeda kula talisay inuu iska diiwaan geliyo koorsada lagu barto shaqada hoteelada arintaas oo kor u qaaday xiisaha uu qabo xirfadda cunto karinta martisoorka iyo soo dhaweynta macaamiisha kun 1994 ayuu aasaasay hoteelka caanka ah ee Dufin wuxuuna 10 sano kadib noqday multimilyaneer kadib markii isaga iyo ninkii ay bahwadaagta ahaayeen ay shirkadii isaga iibiyeen lacag gaaraysa 66 milyan oo euro wixii ka dambeeyay sanadii 2011 Robin waxa uu dhisay koox kale oo hoteelo ah oo lagu magacaabo The Peak haatan waxa uu 6 xarumood oo shaqo ku leeyahay koonfurta England waxaana shirkadiisa oo ku hawlgasha magaca Home Ground Hotels u soo xirooda sanadkii lacag gaaraysa 20 milyan oo euro markii la arkay xirfadda guuleysatay ee Robin ayaa loo aqoonsaday ninka labaad ee ugu saameynta badan Britain dhanka hoteelada waayo loogama baran shaqo xumo markii uu ka qalin jibiyay macadka cunto karinta iyo martisoorka ee Zaray ee ku yaala koonfurta London bartamihii sanadii 1970 barnaamijka tababarka iyo maamul wanaagga ee Savoy Group of Hotels waxa uu shaqo hoose oo kabalyeeri ah ka bilaabay hoteelka casriga ah ee Claridge ee ku yaala London koor inta aan u wareegin oo uusan isla shaqadaas ka bilaabin Digrillon oo ku yaala Paris waxa uu dib ugu laabtay London asagoo da'diisu ay tahay 23 jir waxaana uu noqday qofkii ugu da'da yaraa ee maamula ka noqda hoteelka Barclay intaas waxa uu xigtay 2 sano oo ka soo shaqeeyay hoteelka Bermuda waxa uu dib ugu laabtay UK waxaana loo soo bandhigay inuu noqdo maareeyaha guud ee hoteelka Hampshire asagoo da ahaan jiray 28 sano Robin waxa uu shaqadaas ka tagay 8 sano kadib hase ahaatee waxa uu markii ugu horeysay go'aansaday inuu iskiis u shaqeeyo waxaan ahaa 36 jir waxaan muddo igu filan u shaqeynayay dad kale sidaas darteed waxaan ka fakiray inaan sidaas ku jiro inta nolosheeda ka hartay iyo inaan isku dayo inaan wax kala qabto wixii kale ee ku fakray una doortay guushana uu ku gaaray waxa ay noqdeen
inuu la wareego hotel magaalada bartankeeda ku yaala oo uu xoogga saaro iibka cuntada iyo khamriga. sidaas darteed 1994 waxay iskaashadeen saaxiibkiis Gerard Bassett si ay u daafraan hotelka cusub ee Dauphin si uu u helo lacagtii uu u baahnaa. Robin waxa uu ku guuleystay inuu xaaskiisa Jaddy ka dhaadhiciyo in ay gurigooda rahamad ahaan u dhigaan. arrintaas waxa ay ahayd wixii ugu geesinimada badnaa ee Jaddy ay weligeed samayso. si uu u helo lacagtii uu u baahnaa, Robin waxa uu ku guuleystay inuu xaaskiisa Jaddy ka dhaadhiciyo in gurigooda ama ahaan ay u dhigaan bangiga. Robin iyo Gerard waxay sidoo kale asxaabtooda iyo qoysaskooda ka soo urursadeen lacag gaaraysa 500,000 euro. waxay sidoo kale bangiga ka soo amaaheen lacag dhan 750,000 euro. dhaqaalaha oo ku yaraa awgis labada aasaase waxay fuuleen muruqooda si ay macaamiil u soo jiitaan. waxay ku dadaaleen inay waxyaabo cusub ku soo kordhiyaan hotelka Dauphin sida caano dhay ah iyo qaxwo heer sare ah. hotelkii Dauphin waxa uu isku bedelay silsilad hoteella ah. hase ahaatee iyadoo ay 10 sano ka soo wareegatay aasaaska hotelkaas, Robin iyo Gerard waxay iska iibiyeen saamiyo dhowr ah kadib markii loo gaaray qiimo aanay diidi karin. Robin waxa uu muddo 10 sano ahaa maamulaha hoteelada dhowrka ah ee Soha sanadii 2008. waxa uu Hampshire ka aasaasay hoteelo cusub oo casri ah oo la yiraahdo Limewood. kadibna wuxuu furay hoteelka kale ee The Big sanadii 2011. fadlan ugu dhiirigeli subscribe iyo share deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso. kulan wacan saaxiibayaal, halkan muddo aanu ka maqnayn waxaa jiray hakad nagu yimid dhankayaga, balse haatan waxaanu dib u bilaabaynaa hayaankii dheeraa ee aanu ku soo bandhigaynay xogaha dhiirigelinta u noqon kara dadkeena iyo dalkeena. bishaarada kale ee saaxiibada halkan ku xiran iyo kuwa ku soo xirmi doona aanu u hayno waxay tahay waxaanu idiin soo kordhinay saaxiibayaal barnaamij toddobaadle ah kaasi oo aanu ku falanqayn doono dhacdooyinka ugu waaweyn caalamka toddobaadkaas. mahadsanidin, fadlan subscribe nagu dhiirigeli, faalladaadu waa noo wareelin, sheerna u sii dheh saaxiibadaada kale. waa bahda Audio Som oo idin leh dib u soo noqod wanaagsan.